dadka gobolkan dadku waxbay bartaan damacii baa yaraaday war damiciinu ha badnaado waa inaad kursigaan ku fadhina maanta aad damacdo waa inaad ka gudoomiyuhu ku fadhiyaa damacdo waa inaad ka wasiiradu ku fadhiyaa damacdo oo aad qaadato oo la timaado karti aad hargeysa kaga soo kalluumaysato badweynta 200 jaamacadood ku yaala waa jaamacadii labada gobolka laga furo waa jaamacadda ay furtay maanta 20 jaamacadood ay ku dhaweey gobolka weeyaa jaamacadda eelo waxaan isleeyahay mar haddii jaamacaduhu bateen in jaamacad waliba ay awoodda meel gaara saarto sida adduunyada horumartay jaamacadda eelo waxay hogaaminaysay 11 sanadood ay jirto oo ay xoog ku haysatay oo imtixaan kasta la qaado ardayda eelo ay 5 6 7 iska daba baxayeen kulliyadda injineerinka runtii oo suuqyada caasimadda iyo lagu kala goosto maad aragtay shaqooyinka iyada hogaaminaysay waxaan ku dhiiri gelinayaa oo leeyahay kulliyadda injineerinka sideedii u wada quality-geedii ku ilaaliya noqdana xarun loo soo doonto injineerinka inaad noqotaan jaamacadda eelo waxaan intaa ku darayaa dhallinyarada waa ogtii waa soo kala jabiseen maanta waxaad timaadeen suuq uu camal la'aantu ay tuulan tahay ayaa timaadeen oo 10 sannadood hortood dadkii qalanjibiyey suuqa ay la joogaan taa macnaheedu maaha inayna waxba jirin Soomaaliland laakiin raggu wuxuu kala horeeyaa raggu wuxuu shaqada u kala horali doonaa raggu wuxuu kala sareyn doonaa sida u kala sareysaan sida u kala tacab iyo dadaal badantiin sida u kala maadaragtay dhiiranaan badantiin waayo noloshu ku dhacbay doonaysaa haddaad habrato ma helaysid waxaad baratay haddaad istiraado maalin walba adigu daba taagno wasiir agaasime xildhibaan oo maalin walba si figa intaad hargeysa geyso soo noqoto gaari meesha halkaad rabtee waa inaad u seexato hoteelada hargeysa oo deynta lagugu yeesho deetana waa kaga soo qaadaysaa maalinta dambe anaa taa idin oga waxaan ku soo gabagabeynayaa dadku way badan yihiin walaalayaal dadka gobolkan dadku waxbay bartaan damacii baa yaraaday war damiciinu ha badnaado waa inaad kursigaan ku fadhina maanta aad damacdo waa inaad ka gudoomiyuhu ku fadhiyaa damacdo waa inaad ka wasiiradu ku fadhiyaa damacdo oo aad qaadato oo la timaado karti aad hargeysa kaga soo kalluumaysato badweynta 200 jaamacadood ku yaala haddii la yidhaahdo shaqalaanimo jirta rajo beelina shaqa way jirtaa waxa u jirtaa ninka qaadan karaya ayay shaqa u jirtaa oo bannaanka u taallaa laakiin ninkaan qaadan karin looma hayo waxa ogtiin arrinka labaad ee u dambeeyo qofka bilaadanka ilaahay isku xidh weligaana nin bilaadan ha isku xidhine adoo ilaahay tawakkulkiisa haysta oo ilaahay aaminsan inaad waxaad baratay aad ku liibaanaysa aaminsan ayaad shahaadadaada qaadanaysaa oo aad ka xeraysanaysaa wasaaraddaad doonto iyo xafiiskaad doontay qaranku leeyahay waanaad kaga soo qaadaysa oo ku bishaarayso waalidiinta ubadkaa soo barbaariyey iyo hooyooyinka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii tacab badan bay la garan wax laga yaabaa 90% ay hooyooyinku bixinayeen lacagta jaamacadaha waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa jaamacadaha inay lacagta fiiga ay qaadaan waa la libilaabay waxay maraysaa heer ay adkaatay inay dad badan wax bartaan walaalayaal dadkiina u tura jaamacadaha guud ahaan baa fariintaa u diraya hoos u dhiga jeebka dadkiina la socda iminka jaamacadda hargeysa iyo jaamacadda boorama markaad kulliyadda business administration ka adeegto boorama ka qaalisan waa xaruntii 98% miisaaniyadda dalka lagu hayay baa ka taban boorama ka jaamacadda taban sidee ku dhici karaysaa waa in dib loogu noqdo jaamacaddeena waanu hambalyeynaa annaga aqalkayga joogtaayo walaalkay khadar habiib yusuf baa ka baxay kulliyadda injineerinka inay aqal walba gashana waan rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi